qaabka dadka diinka loo gaarsiin iyo adeegga la isticmaalayo waxaas oo dhan waa ka aamusay maxaa yeelay waa min murunati shariica alislaamiya shariicadu waxa weeye hawlaha noocaasa laan dhuyacay noqonaysa xilliba waxaa laga yaabaa inay cilmigu iyo diinka lagu faafin jiray kaliya in garab neef adhiga garabkii iyo idiin iyo geed jiriftii iyo lagu qoro hadda wuxuu marayaa in lagu qaybsado social media lagu qaybsanaya kitaabtii waraaqda waa laga tagayba waxsaa loo tataabanhayo ordahaya oo marna nuur ifay marna damahaya yaa lagu qaybsanaya telefoon baa taaban kitaab qoran oo dhammaystiran baa kaaga soo bixi waa taaban kitaabka ma joogo waaba damayba derbi baa shaashad lagu qaban wax walba kugu yaala hadhowna waa lagu kala tagay ila dami meel yar baa la taabtay waa dansan yahay qaab badan baa dadka loogu dirayaa waxa laga yaabaa hal maalin inaad 1 milyan ruux u qaybiso hal xadiis gaadhsiiso 10 milyan waxaan markay musakharaadka iyo aalaadkan rabbi idin siiyey khayr u isticmaala diinka ku faafiya ummadda wax ku tara idab darrada iyo laaxinka ka daaya gii axmed diidaad odhan jiray haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligan maanta aynu joogno ee idaacado iyo warbaahin iyo lalaysyo la isticmaal uu joogi lahaa nabigu muxuu samayn lahaa 24 saaca wuxuu taagnaan lahaa idaacadaha diinkaas ummadda ka faafin lahaa idinkuna hantidiinni iyo amwaashiinni balaayin waxay u isticmaalaysaan fooday qaawan oo isruxda xidiga dhaantada xidiga edab darrada wasakhnimada nijaasnimada usgaga waxaasaad wadaan ummadda lagu lugayni oo waqti malaayin lagu bixini edab darro markaasaa wadaad miskiina allihii allah yaa laga siin 10 daqiiqo intaas hadda waxaanu soo gaarnay qadar yar oo hee qaybtii arrimaha diinta waxaa la daba dhigi aan ku nasanno qadarino miisig oo qabow oo macaan aafo soomaali meeshay marayso diintii waxaa laga dhigtay in yaroo la suuq geynayo kii hadda meel moola dhisa ama meel suuq weyn dhisa wuxuu inoo samaynaya in yaroo masaajid ah intaa dhan bay ka fiicanto wax badan bayna taraysaa laakiin hadda ganacsigii baa galay diintiiba inaan hawl adduunya ka dhex aragna mooyeene waajib diineed weeye xilka nabi maxamed weeye waa dhaxalkii suubanaheenni hala faafiyo xil baa kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran baabkaba inaguma jirtaba